dukaan ayaan waxaan soo galay maalin anigoo doonaya inaan barfuunka iibsado. waxaan tegay qaybta barfuunada raggu ay yaalaan. dhaladii ugu horraysay aan arkay barfuunada isku xigxiga ee miiska saaran aad bay u qurux badnayd oo way soo jiidatay. kadib waan buufiyey, laakiin barfuunkeedu ma cajabin. waan ka socday dhaladii ku xigtay ayaan fiiriyey oo iyaduna aan muuqaal ahaan ka qurux yarayn tan hore. kadib barfuunkii markaan buufiyey isaguna ima cajabin, laakiin wuu ka gadisnaa xagga carafta kan kale. sidaan u socday waxaan u tegay dhalo iska simple ah oo aan aad u qurux badnayn, aadna u foolxumayn, iska dhalo iska caadiya oo afar geesa. kabacdi barfuunkii waan buufiyey. run ahaantii carafta barfuunkaasu uu lahaa waxay sabab u noqotay inaan labada indhood isku qabto oon dareemo. barfuunka barfuun la caraf ah weli ma arag, qofna kama urin, anna ima soo marin. kadib markaan damcayna xagga rejistarka la aadoon iibsado ayaan waxaan fiiriyey qiimihiisa, mise waa $220. dib baan waxaan u fiiriyey barfuunadii kale ee dhalooyinka qurquruxda badan ku jiray, mise qiimahoodu aad buu uga jaban yahay. kan waa ku laba jibbaarmayaa dhalooyinka hore. kadib naftaydu waxay noqotay 2 qaybood. qaybna waxay leedahay kani weligii kuma soo marin, barfuunkan mid la midana weligaa maadan arkin, ee gado qiimuhu doonaha joogo. dhinaca kale waxay leedahay si aad lacag meel u dhigatid oo wax kuugu haraan oo baaqi kuugu noqdaan, ha iibsan kan saan qaaliga u ahee kan kale iibso. dood dheer kadib aniga naftaydu barfuunkii waan iibsaday, waana soo baxay. intaan waddada soo saarnaa ayaa waxaa ii sawirmay in fara badan oo bulshadeenna maanta ka mid a in ay ku jiraan halgan noocan oo kale ah. marmarka qaarkood waxaad arkaysaa qof aad u qurux badan oo ku soo jiidanaya, oo bulshada horteeda haddaad maanta la martid qof walbaaba uu faraha qaniinayo oo leeyahay hebel ama heblaayo nasiib badana. xusuuso, barfuunnadii ugu horreeyey waxay soo jiitay waa dhaladooday ahayd. mid walba markaan oriyeyna maan jeclaysan. kan dambe laakiin muuqaalkiisu ima cajabin dhala ahaan, laakiin markaan carabsaday waxay sabab u noqotay inaan labada indhood isku qabto, maxaa yeelay qalbigan ka dareemay. ogow, dhalooyinkii hore way qurux badnaayeen. haddaan soo qaadan lahaana dhalooyin aad qurux badan bay ahaan lahayn. barfuunka caraftiisu iska meel dhexaad buu ahaa, laakiin waxa keenay in ay labadaa barfuun kala gedisnaadaan ma ahayn muuqaalka, ee waa waxa gudahooda ku jira. sidaa darteed markaad doonaysid qof inaad nolol la wadaagtid, waa inuu yahay qof marka aad wada sheekaysanaysaan aad degganaan ku dareemaysid, kalsooni ku dareemaysid, akhlaaq ku dareemaysid, aad dareemaysid qofkan haddaan nolol la wadaago waa wixii aan ku xasili lahaa. ilaahayna wuxuu ugu talagalay guurka waa in lagu xasilo. muhiimadda ugu weyni carruurha la dhalo keliya maaha, laakiin waa inay labada qof ay isku xasilaan, inay isku kalsoon yihiin, inay isku degaan. jacaylka dhabtahay wuxuu koobsanayaa kalsooni, degganaan, dulqaad, labada qof in ay noqdaan laba aan waxba kala qarsanayn. mushkiladda maanta haysata guryo badan oo Soomaaliyeed waa kootorobaan hadallada qaarkood. guriga hadduu wiilku soo galo oo yidhaahdo maanta waxaan soo arkay gabar miskiinoo suuqa ku jabtay, maxay odhanaysaa gabadha Soomaaliyeed? waxay leedahay maxaa inay miskiin tahay horta ku ogeysiiyey, maxaa horta ku tusayba naagtu meeshay ku jabaysay. soo moogid? waa mushkilad maanta haysata bulshada Soomaaliyeed. qofku waa in uu dareemi karo gurigiisa markuu soo galo. u fiirso, barfuunnada aan soo arkay oo dhan kii ugu dambeeyey qaali buu ahaa. markaan uriyeyna sabab waxay u noqotay inaan indhaha isku qabto. dadkana waxaa jira dad fara badan oo saasa, oo marka ay kula hadlaan amaad la hadashid aad hadalkoodu kugu abuurayo kalsooni, oo hadalkoodu kugu abuurayo degganaan, oo hadalkoodu uu ku siinayo xasillooni, oo aad dareemaysid odlada qofkani waa qofkaa nolosha rabay, waa qofkii aan la wadaagi lahaa. maaha inay gabadhu u fakarto wiilka aan guursanay waa miskiin, waa mid aan iska cayrcayrsan karo, waa mid aan hadhow saan doono ula hadli doono, waa mid aan ka adkaay hadda, waa kan uunbaa maanta i deeqi kara. anigu gabdho fara badan waxaa maqlaysaa kuleh anigu aad baanu maaragtay uu dabci kululahayo, dabeecaddeed aad bay u kulushahayo, nin miskiina uunbaa i dhaqi kara. maya, nin ay abiyuus garaysay rabtaa haddii runta laga hadlo. ragga qaarkoodna waa saa, aad baanu kululahay marka waxaan rabaa gabar deggan. maya, gabar waxaad rabtaad abiyuus garaysid baad rabtaa. gabar waxaad rabtaa aad sidaad doonta ula dhaqantid, oo waxaad doonta ku tiraad, oo iska miskiina oo afka gacanta haddaad u gelisid baan ku qaniinayn. taasu ma keento oo ma dhisto guri lagu dego xasiloon. ogow, wax badanoo adduunyadan yaalla qiimaha ay leeyihiin lagama fiiriyo muuqaalkooda kore, waxaa laga fiiriyaa waxaan gudahooda ku jira.
baabuurku wuxuu qiimo ku leeyahay waa matoorka saara nooca uu yahay baana lagu iibiyaa lagama fiiriyo korkiisu qiimaha uu siduu u eg yahay halkaa lagama qiimeeyo ogow dhalooyinka aan hadda kuu sheegay kuwoodii quruxda badnaana lagama fiirinin muuqaalkooda qiimahooda laguma salaynin muuqaalka ay leeyihiin laakiin tii dambe waxaa lagu saleeyey iyadoo aysan qurux badnayn dhaladaasu waxa gudaheeda ku jira ayaa lagu saleeyey qiimaha ay joogto ogow qofka bini'aadamkaahi in uu xasilooni ku siiyo oo kalsooni ku siiyo oo deganaan agtiisa aad ku dareentid waa wax gudihiisa ka imaanaya eemaha wax muuqaalkiisa uu dhalayo qofka waxaa lagu gartaa qiimihiisa sida qalbigiisa uu kula dhaqmayo waa inuu qofku yahay qof agtiisa aad deganaan iyo xasilooni ku dareemaysid oo markaad guriga isugu soo gashaan uu noqonayo qof aad jeclaysanaysid hadalla wadaagiisa ood jeclaysanaysid lacuunkiisa ood jeclaysanaysid kaftankiisa ood jeclaysanaysid taabashadiisa ugu dambaynna habeenkii markaad joodariga isla aadaan ood seexataan waa inuu noqdo qof aad ilaahay ku mahadinaysid inuu garabkaaga jiifo ood indhaha isku qabanaysid adigoo qalbiga kalgacal ka dareemaya